Abiy Ahmed maanta oo kale sanad ka hor ayuu gaaray magaalada Maqale ee caasimadda Tigreega markii gacanta ay ku dhigeen ciidankiisa. Khudbadiisa xilliga waxaa ka mid ahaa: ciidanku maaha ciidan xisbiga barwaaqo leeyahay, wuu ka weyn yahay, maaha ciidan Abiy leeyahay, waa ciidan qaran oo ay shacabka Itoobiya leeyihiin. Inaad ciidan shacab tihiin waxaa ku xaqiijinaya ayadoon magaalooyinka khasaare adna gaarsiinina ay dagaal kula soo wareegteen, TPLFna soo afjarteen. haddaba sanad kadib dagaalku wali waa halkiisii. Maqalana Tigreega ayaa gacanta ku haya. Abiy Ahmedna furinta hore ayuu qoral la taagan yahay. kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal dhamaantiinba barnaamij wareedkayga. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Masar Abiy Ahmed oo furintii dagaal ka bedeshay iyo Tigreegi oo ku fahmay xeeladiisa dagaalka. sidoo kale saaxiibayaal waxaan barnaamij wareedkayga idinkuga haynaa dowladda federaalka ah ee Itoobiya oo si rasmi ah ugu dhawaaqday in TPLF ay yihiin dagaalyahano aan soo waa markaas aanan ku qancaynin in Itoobiya ay si fudud kaga baxaan ama ay hub ka dhigaan. sidoo kale saaxiibayaal waxaan barnaamij wareedkayga idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaal ka soconaya goobo istiraatiijig ah oo labada dhinac ay ku hardamayaan wali. qodobada iyo qodobo kale saaxiibayaal barnaamij wareedkayga idinkugu soo gudbin doonaa. soo dhawaada ayaan idin leenahay. halkan waa Bandhiga Production, wararka ugu waaweyn ee Soomaalida iyo caalamka in mar waliba idinkugu soo gudbinaa. subscribe inoo saara, muuqaalkan like iyo share dhaha, qaybta hoose commentigan aragtiyadiina inagu la wadaaga. waa maasantiin saaxiibayaal. waxaan ku bilaabayaa barnaamij wareedkayga. Abiy Ahmed Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya waxa uu maanta oo kale sanad ka hor magaalada Maqale gaadhay, kadibna gacanta ayuu markaa halkaas ku dhigay. khudbadiisa xilliga ayuu jeediyayna waxaa ka mid ahaa erayo xasaasi ah oo Tigreega ugu hanjabay, kuwa oo u muuqday in markaa Abiy Ahmed uu rajeynayay in halka dagaalada ay ku soo afjarmi doonaan, Maqalana aan dib dambe lagala wareegi doonin. balse sanad kadib dagaalka Itoobiya ka soconayo wali waa halkiisii, walow meeshii ugu adkeed uu taagan yahay. Abiyna la dhihi karo waaba laga awood badan yahay. khudbadii xilliga Abiy Ahmed Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya uu jeediyay waxaa ka mid ahaa: ciidanku bir maaha, ciidanku xisbi barwaaqo leeyahay maaha, wuu ka weyn yahay, maaha ciidan Abiy leeyahay, waa ciidan qaran oo ay shacabka Itoobiya leeyihiin. inaad ciidan shacab tihiin waxaad ku xaqiijiseen ayadoon magaalooyinka khasaare soo gaarsiinina inaad dagaal ku soo afjarteen. markii Mareykanku uu qabsaday Ciraaq 8 bilood ay ku qaadatay ciidamada Mareykanka inay qabtaan, waa inay soo qabtaan Saddam Hussein. idinkuna waxaan idinka sugaynaa inaad soo qabataan TPLF. saraakiisheeda sarsare TPLF dagaal ma yaqaanaan ee waxay garanayaan dagaalka diblomaasiga ku dhifo ka dhaqaaq, waana sababta aan uga adkaanay. dagaal kasta markii la galo kala qaybsanaan baa ka dambaysa guusha. xilligii dheeriga waa dhergiga markii Soomaaliya la galay waxaa lagu mideysnaa, laakiin guusha kadib kala qaybsanaanta ayaa ka dambeysay. sidoo kale dagaalkii Eritrea markii la galayay waa lagu mideysnaa, dagaalka kadibse kala qaybsanaan ayaa timid. waa inaan arintaasi cashar ka baranaa, inaan ciidan nahay oo aan idinku soo dhax baxnay. waan ku faanayaa dagaalkana waynu ku guuleysanay. jeeshka iyagu guuleysta ayadba moodayba inuu maalintaasi Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed qaadayo, balse maanta xaalka ka duwan ayuu ku jiraa. haddii uu shalay booteynay oo ku faanay inay guul gaareen asaga iyo ciidankiisa, maanta dhufaysyada hore ayuu ku jiraa asaga oo baqayo qorigana la taagan. magaaladiisa caasimadda u ah Addis Ababa oo xafiiskiisa uu ku yaalo ayuuna u baqayaa. sidaas darteedna waxa uu tagay dhufaysyada hore ee dagaalka si aan xafiiskiisa loogu imaanin, asaga oo arintaas uga gol leh in TPLF uu iska difaaco, maadaama awoodooda uu ku gacan sayri waayay, isla markaana ciidankiisu ay wadi waayeen inay TPLF soo afjaraan. waxay sii kordhinaysaa tani xaalka Abiy Ahmed ee sii xumaanayay. wuxuuna maanta xasuusanayaa mahadhada maalintii uu ku sugnaa Maqale oo ahayd maanta oo kale sanad ka hor, halkaasi oo khudbad xasaasi ah ka jeediyay. dhinaca kale dowladda Mareykanka waxay TPLF u soo jeedisay eedeymo dhowr ah. Mareykanka wuxuu walaac ka muujiyay gaboodfallo xuquuqda aadamiga ka dhanka ah oo la sheegay inay ka dhaceen deegaanada Amxaarada iyo sidoo kale Canfarta. war-saxaafadeed wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ka soo baxay ayaa lagaga hadlay tacadiyo iyo burbur ay TPLF ka geysatay deegaanada Amxaarada iyo sidoo kale Canfarta. Mareykanku wuxuu soo jeediyay in baaritaan la sameeyo, sharcigana lala tiigsado ciddii falka kana geysatay. waxaana arintan ay u muuqataa inay xaalka Itoobiya sii kordhinayso. afayeenka dowladda dhexe ee Itoobiya
waxa uu ka gaabsaday xidhiidh ay la sameeyeen warbaahinta Reuters si wax looga weydiiyo dagaalada. Waxaa arrintaasi baahiyay wakaaladda wararka ee Reuters waxayna tiri ayada oo waramaysay caawana waxaan si toos ah ula xiriirnay afhayeenka dowladda dhexe ee Ethiopia si aan dagaalada kaga wareysano, balse waa uu ku gacan sayray arrintaasina waa uu ka gaabsaday. sidoo kale waxa isaguna ka gaabsaday oo aan jawaab siinin marka afhayeenka Tigreega ayadoo ay la xiriir la sameeyeen warbaahinta Reuters waxaana la weydiinayay ama wax laga weydiin rabay dagaalada ka soconayo waqooyiga dalka Ethiopia. Suudaan waxay gaashaanka ku dhifatay eedo ay dowladda Ethiopia u jeedisay oo ah inay xukuumadda Khartoum u taageerto jabhadda TPLF. xukuumadda Khartoum way beenisay inay taageerto kooxda TPLF oo ay siiso gabaad iyo tababaro military, waxayna sheegtay inay dhowrto mabaadi'da deris wanaaga isla markaana aysan faragelin arrimaha gudaha ee wadan kale sida ay wadanka marka Ethiopia sida ay ku sheegeen isla markaana dowladda Suudaan ay hadalka u dhigtay. TPLF ayaa waxay dib u qabsatay magaalada taariikhiga ah ee Lalibela sida ay tabinayso Reuters. arrintaasi waa la filan karay oo dagaalo culculus ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ka soconayeen gaashaan halka lagu magacaabo Gashana. labadii cisho ugu dambeysay waxaa aaga Gashana dib uga bilowday dagaalo culculus oo u dhaxeeya TPLF iyo ciidamada militariga Ethiopia. waxay sheegtay inay degeen Ethiopia waxay sheegtay inay aagan ka dagaalamayaan ciidamo TPLF oo go'doon soo galay kuwaasi oo markaa meelay ka baxan waayay. TPLF oo dagaalka aaga Gashana war ka soo saaray waxay sheegeen inay guulo waaweyn gaareen oo ay jabiyeen ciidan 80,000 oo gaadhaya, waxayna sheegeen inay guushaan ay keentay qorshahoodii aag bedelashada. waa sidii hadalka u dhigeen. Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Ethiopia hogaaminayo ayaa horey u qabsaday aagan muhiimka ah ee Gashana. saaxiibayaal, barnaamij wareedka iyagu ku saabsan xaaladaha dalka Ethiopia ayaa daawanaysaan wararkii ugu dambeeyay xaaladaha dalka Ethiopia ayaynu iminkana eegaynaa iyo sida arrintaani xaaladaha dalka Ethiopia looga hadal hayo. magaalada caasimadda u ah Ethiopia ee Addis Ababa waxaa ku sugan diblomaasiyiin sarsare oo dib ugu soo laabtay, waxayna ka warbixinayaan ama dowladda federaalka ah ee Ethiopia ay ka dhuganayaan dagaalada iyo siday u socdaan iyo inay macquul tahay in ay dib ugu soo laabtaan magaalada maadaama dagaaladu ay ka durgaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Ethiopia. militariga Ethiopia waxa uu sheegay inay gacanta ku dhigeen buuraha muhiimka ah ee la yiraahdo Zobel. sidoo kale waxay sheegeen inay qabsadeen gurabo oo kalka lagu magacaabo. waxay ka dhigan taarintan inay kala jareen wadadii isku xidhiisay Waldeeya iyo sidoo kale Maqale, waxayna sheegayaan inay go'doominayaan ciidamada aaggaas ku sugan. walow arrintaasi ay breaking news tahay aanan la xaqiijin karin welina haatanna waxaa la sheegayaa in dowladda Turkiga xitaa ay qayb ka tahay dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Ethiopia oo ay dhinac ka mid ah dhinacyada taageersan tahay, ayadoo u muuqato in ay taageerayso ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Mr. Abiy Ahmed oo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay saaxiibo dhow yihiin. deegaanka Amxaarada waxaa la sheegay in qayb ka mid ah bulshadu halis xoogan ay soo food saartay. maamulka Amxaarada waxay sheegeen in TPLF burburisay xarumo caafimaad oo gaaraya 2,348 dhawaan ay ahayd markii deegaanka Amxaarada ay sheegeen in 300 bilyan hanti u dhigantay ay burburtay deegaanka Amxaarada, waxaana ka mid ah warshado waaweyn oo deegaankaasi ka jiray. maxkamad ayaa waxa ay dambi ku heshay madaxii hore ee sirdoonka Ethiopia, waxaana arrintaasi ay sii xoojinaysaa qalaasaha iyo sidoo kale isla xisaabtanka barbar soconayo dalka Ethiopia. dagaalada ka soconayo booliiska dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa ay saacad u sheegeen inay taageeri doonaan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Mr. Abiy Ahmed, isla markaana uu ku saxsan yahay dagaalada uu ku qaaday kooxaha uu ku sheegeen markaa baabi'iyaal iyo sidoo kale inay diinta islaamka xitaa ay dagaal kula jiraan TPLF. waxaana lagu eedeeyay hoggaanka sare ee TPLF inuu Soomaaliya si gaar ah u bartilmaameysanayo. dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia shacabka ku dhaqan ayaana aaminsan in dantooda ay ku jirto dhinaca lagu markaa Abiy Ahmed oo ay door bidayaan maamulka Abiy Ahmed maadaama Tigreega la og yahay muddadii dalka Ethiopia uu ka talinayay xasuuqii, dhibaatadii, burburkii iyo baabi'ii uu kala kacay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Ethiopia. saaxiibayaal, halkan waa Bandhiga Production, waxaad daawanaysaan barnaamij wareed ee ku saabsan xaaladaha dalka Ethiopia. wararkii ugu dambeeyay xaaladaha dalka Ethiopia ayaan halkan idinku soo gudbinaa. si aad mar walba u heshaan subscribe saarta muuqaalkana laga share dhaha qaybta hoose comment-gana aragtiyadiina inagu la wadaaga. waa maasantiin saaxiibayaal, guud ahaanna gabagabada barnaamij wareedkayga aan soo gaarnay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.